wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya waanta laga dhaxwado madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu waji cusub galay iyadoo Farmaajo uu soo bandhigay laba qodob oo heshiiskaasi ku qaadan karo. dadaaladan ayaa waxaa wada gudoomiyaha golaha shacabka ee waqtigu ka dhacay Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay wehelinayaan wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. xog cusub oo aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu la kulmay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Carab iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala. xogta aan helnay ayaa sheegaysa in Farmaajo uu soo bandhigay laba qodob oo kala ah: 1. in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur loo wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana wasaaradda amniga loo magacaabo shakhsi ka imaanaya dhanka madaxweyne Farmaajo. 2. in Bashiir Goobe uu ra'iisul wasaaraha u magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya la geeyo meel kale oo aan ahayn taliska NISA oo madaxweyne Farmaajo uu keensado qof uu isagu soo magacaabay. sida ka muuqata labadan shuruud uu soo bandhigay madaxweyne Farmaajo ayaa aad u daneynaya inuu gacanta ku dhigo hay'adaha amniga dalka, taasi oo haddii uu Roble u aqbalo u suurtagelin karta inuu mar kale si qaldan u adeegsado ciidamada qaranka Soomaaliya. macda in ra'iisul wasaare Roble uu aqbali doono shuruudan, balse waxaa jira warar sheegay in Roble lagu cadaadinayo inuu isaga tanaasulo kadib markii Farmaajo uu diiday inuu tanaasulo sida uu sheegay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxaa boogaadin mudan waan kastoo xiisada lagu dejinayo, waxaanse ka xumahay in qoladii waanta ku jirta ay ku soo quusteen dhanka Farmaajo ay rabaan in ra'iisul wasaare Roble ay ku cadaadiyaan inuu tanaasul iyo gorgortan lama gelin karo. xagal daacinta cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil iyo gabaadsiinta eedeysanayaasha kiiska iyo in ra'iisul wasaaruhu uu hogaamiyo amniga iyo doorashooyinka dalka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. sida ka muuqata labada shuruudood ee wato madaxweyne Farmaajo in xal laga gaaro wada hadal ayaan weli fara ka qodnayn, mana muuqato in ra'iisul wasaare Roble uu aqbali doono arrimahan sida ay saadaalinayaan xubno ku dhow. dhinaca kale, agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo talaadadii ku soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa durba bilaabay galaangal siyaasadeed. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la kulmay taliyayaasha booliska Jeneraal Xijaar, kan booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kusimaha hay'adda NISA uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yaasiin Farey iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya. lama oga qorshaha ka dambeeya shirka Fahad Yaasiin iyo taliyayaasha ciidamada, balse waxaa muuqata in Fahad Yaasiin uu weli saameyn weyn ku dhex leeyahay taliyayaasha ciidamada, isla markaana imaatinkiisa Muqdisho uu xaaladda iyo loolanka siyaasadeed ee dalka wax badan ka bedeli karo. Fahad Yaasiin ayaa talaadadii dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib maalmo uu ka xiriirnaa waddanka Turkiga, iyadoo wararka ay sheegayaan inuu ku yimid diyaarad qaas ah. maqnaanshiyaha Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa loo arkayay inay qayb ka ahayd guuldarooyinka siyaasadda ee toddobaadadii dhawaa uu wajahayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta iyo dhaqaalaha dawladda uu kala wareegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ay dhaceen kulamo dhowr ah oo ku saabsan waanta la dhaxdhigayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.